waxaa jira mashaariic aad u waaweyn oo dunida laga hirgeliyey kuwaas oo ay ku baxday dhaqaale aad u badan oo gaaraya balaayiin dollar, waxayna soo jiitaan mashaariicdaas dad badan oo ku nool dunida, ayagoona sidoo kale saameyn weyn ku leh bulshada, deegaanka iyo dhaqaalaha dowladaha. mashaariicdaas dhismooyinka ee aadka u waaweynna waxaa ka mid ah buundooyinka, wadooyinka gawaarida, wadooyinka qadadka tareenada, garoomada diyaaradaha, biyo xireennada iyo mashaariicda hawada sare. haddaba kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta ee ku saabsan 10 mashaariic ee caalamka ugu weyn kuwaas oo ay ku baxday lacag aad u badan oo balaayiin dollar ah. kanaalka qadka tareen ama loo yaqaan Canal Tunnel, mashruucan qadka tareen ee aadka u baaxadda weyn ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Tunnel, wuxuuna bilaabmay howshiisa sanadii 1988 ayadoona la furay sanadii 1994. dhererka qadkan tareenna wuxuu gaaraa 50 kilomitir asigoona hoos mara badda iskuna xira xeebaha dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska. waana mashruuc lagu dhisay in lagu xoojiyo iskaashi ganacsi oo dhexmara labadan dowladood, waxaana ku baxday mashruucan dhisidiis lacag gaaraysa 22.4 bilyan oo dollar. qiimahaasna waa mid aad ugu sareeya midii hore lagu qorsheeyay in lagu dhiso mashruucan, waxaana taasi keentay ayadoo lagu dadaalay sugnaanta mashruuca iyo nabadgelyadiisa. waxaana ka qayb qaatay mashruucan qadka tareen ee Tunnel 15 shirkadood oo ka kala socday labada dowladood ee Faransiiska iyo Ingiriiska. mashruuca qodista weyn, mashruuca The Big Dig waa mid ka mid ah mashaariicda aad ku waaweyn oo ay qabatay dowladda Mareykanka, waana mashruuc lagu dhisay wadooyin waaweyn oo mara magaalada Boston. inkastoo haddana dhibaatooyin aad u badan oo uu wajahay mashruucan ayaa waxa uu soo idlaaday ka hor waqtigii loo qorsheeyay, ayadoona ay ku baxday qiimo aad ugu sareeya midii hore loogu qorsheeyay, taasi oo ay ugu weyneed qaladaadka aadka u badan ee ka dhashay qaabka naqshadeed. waxaana The Big Dig ku baxday lacag gaaraysa 23.1 bilyan oo dollar. garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kansai, garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kansai waxaa lagu tiriyaa garoomada ay ku baxday dhismahooda lacagaha ugu badan garoomada caalamka, waxaana uu ku yaalaa garoonkan dalka Japan, gaar ahaan bartamaha jasiiradda gacanka Osaka oo ah jasiirad nafsad ahaanteeda la sameeyay, waxaana loo dhisay si ay isaga caawiso dhulgariirada iyo hirarka aadka u sareeya ee wata dabeelaha ee ka dhaca jasiiradda Okeeda. sababta kalena ee loogu dhisay jasiiradda ayaa ah in laga fogeeyo magaalada guuxa garoomada, waxaana ku baxday dhisidda mashruucan garoonka diyaaradaha ee Kansai lacag gaaraysa 29 bilyan oo dollar. qadka tareen ee xawaaraha dheer ee California waa mashruuca ugu qaalisanaa caalamka ee ku baxday lacagaha ugu badnaa ee lagu dhiso qadad tareen, waxaana wadadan qadka tareen ee xawaaraha dheer ee California ku baxaysa lacag dhan 33 bilyan oo dollar. waana mashruuc bilowday sanadii 2015 kaasi oo weli socda, ayadoona la filayo wejigiisa koowaad ee gabagabada in uu soo ilaado marka la gaaro sanada 2029. ujeedada loo dhisay qadkan tareenna ee California ayaa ah inay isku xirto magaalooyinka ku yaala gobolada waaweyn ee Mareykanka, ayadoo loo marayo isticmaalid qadad tareen oo aad u xawaaro sareeya. goobta ganacsiga caalamiga ee Songodo, mashruucan dhismaha ah ayaa waxay dowladda Koonfurta Kuuriya ka bilowday goob u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee Incheon, waxaana dhismaha mashruucan goobta ganacsi ee Songodo ku baxday lacag dhan 40 bilyan oo dollar. waana dhismooyin waaweyn oo gaaraya caasimadda dalka ee Seoul, waxayna goobtan ganacsi ee Songodo noqonaysaa magaalo weyn oo u taagan mustaqbalka, lehna hal abuur tiknoolajiya oo casri ah. Dubailand, naqshada qaabka dhismaha mashruuca Dubailand ayaa waxaa laga raacayaa hidaha Carabta, gaar ahaan sheekada caanka ah ee kun habeen iyo habeen, waxaana uu mashruucan Dubailand ku bilowday lacag gaartay qiyaastii 76 bilyan oo dollar, balse shaqadii dhismaha goobtan ayaa la joojiyay sanadii 2008 sababo la xiriira dhaqaale xumo soo wajahday Dubai. hase yeeshee sanadkii 2013 ayaa dib loo bilaabay dhismaha mashruucan. markuu dhamaadana dhismahaana Dubailand ayaa noqon doonta barta ugu weyn uguna qaalisan caalamka ee loo taga dalxiis iyo madadaalo. magaalada dhaqaalaha ee Boqor Cabdullaahi, mashruuca magaalada dhaqaalaha ee Boqor Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay mid ka mid ah mashaariicda ugu qaalisan caalamka,
dhismaha mashruucaana waa mid aan dhammaadin oo weli socda, waana goob ku taala saacad wax ka badan meel u jirta magaalada barakeysan ee Maka, waxayna noqon doontaa magaaladan dhaqaalaha ee Boqor Cabdullaahi, goob dalxiis oo aad u ballaaran oo ku taala boqortooyada Sacuudi Carabiya, ayadoona laga heli doono xarumo madadaalo, hoteelo, guryo qurux oo aad u sareeya, qaar ka mid ah jaamacado iyo garoon diyaaradeed oo aad u weyn, waxaana lagu bixinayaa mashruucan lacag gaaraysa 86 bilyan oo dollar. goobta saliidda ee Kashagan waa mashruuc ay ka qayb qaateen shirkado dawlado badan oo caalami ah sida shirkadaha Eni, Shell, Total iyo Exxon Mobil, waxaana ay shirkadda Shell ay tahay tan mas'uulka ka ah shaqada wax soo saarka. mashruucan ayaana ah goob saliidda laga soo saaro oo ku taala badda Kasbiyaanka, halkaas oo lagu tiriyay dhulalka Kashagan ee laga helay ceelasha shidaal ee ugu weynaa caalamka 40kii sano ee la soo dhaafay. maalintiina waxaa laga soo saaraa ceelashan ku dhawaad 90,000 oo fuusto. mashruucanna wuxuu soo maray caqabado aad u badan sida cilado ku timid dhuumaha tubooyinka shidaalka qaada iyo cadaadiska aadka u sareeya ee soo wajahay ceelasha, taasi oo keentay inay ka dhalato khatar aad u weyn qoditaanka goobtan. waxaana xusid mudan inay ku baxday mashruucan saliidda ee Kashagan lacag gaaraysa 186 bilyan oo dollar. xarunta caalamiga ee hawada sare ama loo yaqaan International Space Station waa mashruuc aad u weyn oo la sameeyay sanadii 1998 ayadoona ay ka qayb qaateen sameyntiis dawlado badan oo caalamka ah oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Ruushka, Canada, Japan, Talyaaniga, Faransiiska iyo dawlado kale oo Yurub ah. waxaana ay xaruntan caalamiga ee hawada sare ay ka mid tahay mid ka mid ah meelaha laga helo cilmi baarista la xiriirta hawada sare, sidoo kalena waxay qayb weyn ka qaadataa soo iktishaafida caalamkan aadka u weyn ee ka baxsan meeraha, ayadoona ay u sii dheertahay in aadanuhu ku xaqiijiyeen daraasado badan oo ay ka mid yihiin culumta sayniska ee hawada sare, culumta noolaha, culumta fiisikiska, culumta xidigaha iyo culumta la xiriirta saadaasha hawada. xarunta caalamiga ee hawada sarena dhulka waxay ka fogdahay oo ay ka sareysaa masaafo dhan 400 oo kiiloomitir, waxaana ku baxday sameynta xaruntan caalamiga ee hawada sare lacag dhan 150 bilyan oo dollar. habka isku xirka wadooyinka degdega ee xawaaraha dheer ee Mareykanka waa mashruuca ugu qaalisan ee laga hirgeliyay caalamka, waxaana ku baxday lacag gaaraysa 459 bilyan oo dollar. wuxuuna bilowday mashruucan sanadii 1956 markii horena ujeedada loo dhisay ma aysan ahayn in laga dhigo wadooyin badan oo gaadiid ah, balse xilliyo kadib waxaa loo bedelay mashruuc aad u weyn oo ballaaran oo isku xira wadooyin waaweyn oo ku yaala dalka Mareykanka, waxaana ay ahayd gobolka Nebraska goobtii ugu horeysay ee si dhameystiran loogu qabtay mashruucan wadooyinka sanadii 1974 ayadoona ay ugu dambeysay gobolka Colorado sanadii 1992. inkastoo mashruucan wadooyinka uu wajahay dhibaatooyin aad u badan oo ay ka mid ahayd duufaantii xoogganeed ee Katrina, taasi oo u keentay khasaare maadiyadeed oo aad u weyn dawladda Mareykanka. haddaba intaas waxay inoo eg muuqaalkeena maanta oo aan ku soo bandhignay 10 mashaariic ee ugu weyn caalamka. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar kana soo dhiibo fikradaada mashruucii ku soo jiitay, hana hilmaamin inaad kanaalka caalam subscribe dhahdo si muuqaalo badan oo xiiso leh kuu soo gaaraan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.